magaalo yar oo ku taal duleedka Muqdisho, waxaa ku noolayd Hibaaq oo ahayd gabar 14 jir ah. Hibaaq waxay ahayd gabar indheergarad ah, firfircoon, isla markaana ku hamisay inay noqoto dhakhtarad mustaqbalka si ay u caawiso dadka tabaalaysan. Indhaheeda waxaa ka muuqday iftiin iyo rajo, waxayna ahayd curadda guriga oo ay hooyadeed iyo aabbaheed aad u jeclaayeen. Maalin kasta Hibaaq waxay u lugayn jirtay dugsiga quraanka iyo iskuulka, iyadoo maraysa waddo yar oo dhir leh. Dadka deegaanku waxay u yaqaaneen gabadhii asluubta badnayd. Ma jirin qof malaysan karay in masiibo ay ku soo fool leedahay, gabadhaan yar oo aan waxba galabsan. Habeenkii madooba. Maalin Talaado ah, qorraxdu waxay u dhacday si ka duwan sidii hore. Hibaaq waxay ka soo daahday dugsiga quraanka sababo la xidhiira casharo dheeraad ah. Iyadoo keligeed socota waddadii ay markasta mari jirtay, ayaa waxaa ka soo horbaxay nin ay dadka deegaanku u yaqaaneen inuu yahay nin weyn oo la ixtiraamo, kaas oo deris dhow la ahaa qoyska Hibaaq. Ninkan oo magaciisa la yidhaahdo Cumar, wuxuu u yeedhay Hibaaq isagoo iska dhigaya inuu rabo inay wax u qaado. Hibaaq iyadoo u malaynaysa inuu yahay oday la mid ah aabbaheed ayay raacday. Meel cidlo ah oo madow ayuu Cumar isku beddelay bahal. Hibaaq waxay isku dayday inay qayliso, laakiin gacmihiisa waaweyn ayuu afka kaga qabtay. Codkeedii yaraa ee ay ku baryaysay, adeer ha i dhibin, waxaan ahay gabadhaadii, ma uusan maqal naxariis darane. Halkaas ayaa lagu jibiyey bigradeedii sharaftii, rajadii iyo carruurnimadeediiba Hibaaq. Naxdin iyo naaso gariir kadib. Hibaaq waxay guriga ku soo laabatay iyadoo dharku ka jeexjeexan yihiin, wejigeeduna uu bararsan yahay oohin darteed. Hooyadeed Maryan markay aragtay gabadheeda, wadnaha ayaa istaagay. Hibaaq ma hadli karin, jidhkeeda ayaa gariirayay, indhaheeduna waxay u ekaayeen kuwo arkay geerida. Markii ay hooyadu ogaatay wixii dhacay, waxay rabtay inay qayliso oo ay dunida oo dhan u sheegto. Laakiin halkan waa Soomaaliya, meesha mararka qaar ceebta loo arko cadaalad. Aabbaheed markii uu yimid, naxdin iyo xanaaq ayuu la dhacay. Wuxuu yidhi, haddii dadku ogaadaan, sharafteenna ayaa hoos u dhacaysa. Sidee loo guursan doonaa gabar la kufsaday? Sideen u dhex mari doonaa dadka asaagay ah? Hibaaq iyadoo xanuunka kufsiga iyo midka dhaawaca nafta ay isugu darsameen, ayay maqashay aabbaheed oo ka welwelsan sharaf halkii uu ka welweli lahaa caafimaadkeeda iyo xaqeedii la duudsiiyey. Dagaalkii loogu jiray cadaaladda. Maryan hooyada Hibaaq waxay diiday inay aamusto. In kasta oo ninku iyo qoyskuba ay ku cadaadinayeen in la qariyo qisadan, Maryan waxay go'aansatay inay gabadheeda u raadiso cadaalad. Waxay u kaxaysay isbitaalka, halkaas oo dhakhaatiirtu ay xaqiijiyeen xadgudubka baan ee loo geystay. Ninkii dhibka geystay, Cumar, wuxuu isku dayay inuu lacag iyo odayaal isticmaalo si dhibka loo aasaaso. Wuxuu yidhi, waa qalad dhacay, ha la xalliyo si dhaqan ah. Laakiin Maryan waxay tidhi, ma jirto xallin dhaqan oo soo celinaysa carruurnimadii gabadhayda. Waa inuu sharciga wajahaa. Hibaaq waxay gashay xaalad maskaxeed oo aad u adag. Waxay joojisay iskuulkii, waxay ka baqi jirtay ragga oo dhan, xataa aabbaheed ayay ka dhuuman jirtay. Waxay dareemaysay inay tahay qof khariban oo qalad sameeyey, oo kale sidii ay eedadeed iyo dadka qaarkood u sheegeen. Maxkamadda iyo niyad jabkii Hibaaq. Dhowr bilood kadib, dacwaddii waxay gaartay maxkamadda. Hibaaq waxaa lagu qasbay inay hor istaagto ninkii nolosheeda burburiyey. Iyadoo gariiraysa, ayay qisadeeda u sheegtay garsoorka. Xaqiiqadu waxay ahayd mid qaraar. In kasta oo Cumar lagu xukumay dhowr sano oo xarig ah, haddana Hibaaq xukunkaas ma uusan siin naxariis iyo kalsooni buuxda. Naxdinta ugu weyn waxay ahayd markii ay maqashay dadka qaar oo leh, gabadhu maxay gurigooda u joogi weyday, waabo gabare iyo maxay bannaanka ka doontay ama waxay ahayd in la qariyo. Bulshadu waxay dhibta dusha ka saartay dhibbanaha, halkii ay cambaarayn lahaayeen dambiilaha. Muddo dheer oo kabsasho ah. Sannado ayaa ka soo wareegay. Hibaaq ma noqon dhakhtartarnimdii ay ku riyoon jirtay, waayo xanuunka nafsiga ah ayaa ka hor istaagay inay sii wadato waxbarashada heerkaas ah. Laakiin waxay noqotay u doode xuquuqda carruurta iyo dumarka la dhibo. Waxay gurigeeda u beddesha xafiis ay ku caawiso gabdhaha la kulma kufsiga, iyadoo u sheegta, adigu dambi ma lihid. Ma lihid ceeb. Waxaad tahay geesiyad sidoo kale waxaa tahay gabbar nool. Hibaaq markay muraayadda iska eegto, marna ma aragto gabadhii yarayd ee faraxsanayd ee ay ahaan jirtay ka hor habeenkaas madow. Waxay aragtaa nabar weyn oo wadnaha kaga yaal, laakiin waxay go'aansatay in nabarkaas uu noqdo mid xusuusiya in aysan marnaba ka quusan u dagaalanka gabadh kasta oo Soomaaliyeed oo loogu hanjabo ceeb iyo sharaf ma lihid si looga aamusiyo cadaaladda. Gunaanadka iyo dulucda.
Kufsigu ma aha dembi ka dhan ah sharafta qoyska oo keliya, waa dembi ka dhan ah aadanaha iyo nafta qofka. Soomaaliya iyo meel kasta oo dunida ka mid ah, waa in laga gudbaa dhaqanka ceeb ku sheega iyo victim blaming ee gabadha la dhibay dusha laga saaro khaladka. Hibaaq waa tusaalaha gabdho badan oo codkooda la caburiyey, laakiin sheekadeedu waxay ina baraysaa in cadaaladdoonku uu yahay jidka keliya ee lagu bogsan karo.